Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada barashada luqadda Carabiga. Gaar ahaan waxaan baranaynay maalmahan cudurrada. Waayahay maanta waxaan ka bilaabaynaa aqyaa'ul xamli waa walac. Aqyaa'ul xamli walac ayaa la yiraahdaa. Markii qof dumarku ay walac yihiin waxaan leenahay aqyaa'ul xamli walac. Xikatun waa cuncun. Xikatun cuncun jirka oo cuncuna waxaa la yiraahdaa xikatun. Qaybuubatun miirbeel. Qaybuubatun miirbeel ama koomo qofka inuu koomo galo. Qaybuubatun ayaa la yiraahdaa. Ighmaa'un waa suuxdin. Ighmaa'un suuxdin. Asarcu waa qalal. Asarcu qalal qofka inuu dhulka uu ku dhaco oo uu qalalo ayaa waxaa la yiraahdaa asarcu. Ghasayaanun lalabo. Ghasayaanun lalabo laqanyo qofka inuu lalaboodo waxaa la yiraahdaa ghasayaanun. Bawaasiirun waa baabasiir. Bawaasiirun waa cudurka baabasiirka. Kuzaazun teetano. Kuzaazun waa teetano. Tan dambana waa za dhibicda ayaan ka tagnay. Cafwan tan horena waa za tan dambana waa za waxaan leenahay kuzaazun teetano ama kujiye. Alqawbaa'ul xalqiya waa dharabow. Alqawbaa'ul xalqiya waa cudurka dharabowga. Dharabow. Alqawbaa'ul xalqiya. Shalalun dabaysha. Cudurka dabaysha ayaa la yiraahdaa shalalun. Inxibaasul bawli kaadi qabad waa inxibaasul bawli kaadi qabad ama kaadida oo qofka ku dhegta ayaa waxaa loo yaqaanaa inxibaasul bawli kaadi qabad. Araqun waa hurdo la'aan qofka hurdada oo ka soo dhici weyda xilliga habeenkii. Araqun waxaa kaloo la yiraahdaa suhaadun. Araqun ama suhaadun waa isla macno waa hurdo la'aan qofka hurdo ay ka imaan weydo xilliga habeenkii. maantana qaybtan halkaas ay inoo joogto aan ku barnaynay qaar ka mid ah cudurrada. Aad u mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.